guddiga waxaan leenahay anigu hal kalmaan raba inaan dhaho iska gudbinayaa waxaa weeye soo dhowaada waa ku faraxsannahay soo dhowaada waad la socotaan dee hawshii halkan aan ka haynay ama meediyahaad ka aragteen ama xog baabad ka hayseen waftiga qaar baa inii yimid waxaan u soconnay waxaa weeye in shirkeennii daba heshiisiinta iyo kii aan wax ku dhisanayn labadaba inuu halka inooga furmo qaybaha kale iyo hadallada kale o dhan waa inoo dambeeyaan intaan baan muxuu ahaa kalmadda guddiga inaan dhahaan rabay aadan ugu faraxsanahay runtii soo dhoweynta diiran ee maanta isdaba joogga ah ee ka dhacaysa caasimadda galmudug ayagoo ay isugu imaanahayaan beelihii galmudug iyagoo doonahaya in ay galmudug cusub sidii loo yagleeli lahaa iyo wax alla wixii ka horreeya oo dib u heshiisiinta ka horraysa ee sidii arrinkaas salka dhulka loogu dhigin lahaa wufuudda isugu imaanaysa waxaan leenahay kuwii hore iyo idinkaba marxaban baan idin leenahay ahlan wasahlan wa marxaban beesha tan mursade runtii waxa weeye maadaama beele loo imaanahayay beel walba magaceeda la sheegahayay marka dadka dham dad walaalaa waaye kala beelbeel maa waa walaalo waa mid ayaka dham intay isu soo hiloobeen isu imaanahaya marka waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada maad dhammaan ilaahay buu u sugnaatay annagu waxaanu joognaa aqalka yagi marti kuma nihin haddaasan nagu ixtiraamteen inaad na soo dhoweyseen waad mahadsantihiin walaalayaal aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa halkani waa caasimaddii galmudug waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku soo tashannay oo ergadeennii ayadoo cid aysan naga maqnayn ku soconnaa sida guddiga qabanqaabada ay noogu baaqeen inaannu dhulkeenna dhisanno inaannu si wanaagsan uga qayb galno dib u heshiisiintaas oo si caloolo ah oo niyad furin ah aanu uga qayb galno haddii alla wada la ogolaado ummadda kalena aan kula qaybsanno intaasoo kale ayaguna nagula qaybsadaan intaasaannu u soo istaagnay walaalayaal waad mahadsan tihiin carrigayaannu joognaa gurigeennaan joognaa marti kuma nihin niyadii qalbi waan ku leennahay halkaan diyaargaroow baannu ku nimiday inaannu goobtaas aanu ka qaadanno dib u heshiisiinta kaalinta aan ku leennahay oonu isku saamaxno oo howlaheennaan horu galno intaasaannu ku nimid waadna mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alla ayaan u mahad celinaynaa marka ugu horraysa na keenay gobolladii maxaata gobolka galmudug ee dhuusamareeb magaalo madaxda annagoo ka soconna xamar hogaaminaynana ergooyinka anagoo maxamuud cali nabadoonka guud ee maxamuud hiraab ergooyinka maxaa tidhaahdaa maxamuud hiraab inaan maanta ka soo degno ayraboorka ugaas nuur aad iyo aad ay nagu soo dhoweeyaan guddiga maxaa tidhahdaa qabanqaabada nabadgelinta shirka dib u heshiisiinta iyo beelweynta iyo waxgaradka beesha dhuusamareeb ee halkan ku nool gudoomiyaha guddiga xogeenka iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo walaalaha qiimaha badan ee hortayada taagan reer dhuusamareebna soo dhoweeyey aad baan yani idinku mahad celinayna annagu waa dhownahay warkuna waa kooban yahay annagu waa nimid farxad baan yaan la nimid waxaana weeye walaalaha kalena waa idinla soo dhoweyn doonaa danahana waa u tashan doonaa insha allahu qaadir madaxda galmudug oo uu fadhiyo madaxii xukuumadda iyo dowladda federaalka heshiiska ay galeen oo midhahan dhalay oo intayadan isu kaayo keenay markii hore waa ka mahad celinaynaa ilaahay mahad dhammaantay u sugnaatee ergada guddiga dib u heshiisiinta oo odayaalka anigu maalin dhow waxaan idhi raggiinaan markii hore yaa u sheeg yaa baray nimankii idin xulay say idin ogaadeen isu meel maadnaa joogin magacdiinnu meel uma oolin basawiradiinnu uma xariisan say idin heleenaa la yaabahan idhi raggiinaan marka waxa weeye ayadana aad iyo aadan uga mahad celinayna dadka loo xulay miisaankooda iyo hawsha siday maaragtay u yihiin dadkii u cuntamay dadweynaheenna shacabka oo reer galmudug
na waxaa weeye waxaana buuxiyey farxad heshiiskaas markaan maqalay qof walba oo annaga naga mid ah dal iyo dibad wuxuu cayilay oo ku farxay oo maaragtay aad iyo aad u soo dhoweeyey heshiiska ka dhacay galmudug ilaahay baa mahadle allihii weynaay oo koonka nagu abuuray maantana noo suurto geliyey inaynu halkaan arrimaheena qaaskaa uga tashanno allahaa weyn baa mahad u sugnaatay mahadda labaad waxaan u celinayaa dadka ku dadaalay dib u heshiisiinta iyo gogoshaan wanaagsan dhigay oo nagu soo dhoweeyey mahadda labaad baan u celinayaa waxaa farxad weyn noo ah maanta inay soo bilowdeen ergooyinkii beelihii galmudug oo shirka aan qabaqaabinaynay muddada bisha ku dhow aan ugu yeernay inay na soo ajiibeen farxad weyn bay noo tahay maanta waxaa waaye kooxdii ugu horeysay oo rasmiga ahayd ayaa nooga timiday waxaan dhahaynaa ku soo dhowaada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaan dhahaynaa waxaan haddaan nahay guddiga qabanqaabadana farxad aan la malay karin ayaa intaas ay noo